cali wuxuu ahaa darawal kaxeeya gaadiidka waaweyn ee rarka qaada, isagoo inta badan u safri jiray gobollada fogfog ee dalka. Habeen madow oo ay dabaylo xooggan dhacayeen, cali wuxuu marayay waddo cidlo ah oo dhex marta deegaanka loogu yeero Guban. Deegaankani wuxuu ahaa mid caan ku ah sheekooyin naxdin leh, balse cali ma ahayn nin rumaysta waxyaabahaas. Si lama filaan ah, matoorkii gaadhiga ayaa istaagay, iftiinkiina wuu ka bakhtiyey. cali wuxuu isku dayay inuu dib u kiciyo, balse wax walba way diideen. Markii uu bannaanka u soo baxay, wuxuu dareemay aamusnaan dhimasho u eg, waxaana sanka kaga dhacay ur u eg hilib muddo dheer yaalay oo qurmay. Isagoo isticmaalaya tooshkiisa, ayuu bilaabay inuu raadiyo meel uu magangalo ilaa waagu ka baryo. Isagoo dhex lugaynaya geedaha qalafsan ee Guban, ayuu arkay iftiin daciif ah oo ka imaanaya aqal yar oo ku yaalay meel durugsan. Markii uu u dhowaaday, wuxuu arkay oday waayeel ah oo fadhiya albaabka hortiisa, kaas oo loo yaqaanay oday beeray. Odaygu wuxuu lahaa indho aad u madow oo aan lahayn qayb cad, wuxuuna u dhoolla caddeeyey si naxdin leh. cali wuxuu weydiistay caawimaad, laakiin odaygu hadal kuma soo celin, wuxuuna keliya gacanta ugu tilmaamay inuu gudaha u galo. cali markuu guriga galay, wuxuu dareemay in derbiyadu ay u neefsanayaan sidii wax nool. Darbiga waxaa ku yaalay sawirro dad wejiyadoodu ay gogo'an yihiin, kuwaas oo u muuqday inay qaylinayaan balse aan cod lahayn. Oday beeray ayaa cali u keenay webi yar oo ay ku jirto biyo casaan ah oo u eg dhiig. Safarku waa dheer yahay, ayuu yidhi odaygu isagoo codkiisu u dhow yahay gunuuno. cali wuxuu dareemay cabsi weyn, biyihiina ma uusan taaban. Wuxuu arkay in geeska qolka ay yaalaan dhar iyo kabo badan oo bini'aadam, kuwaas oo u muuqday inay leeyihiin dad safar ahaa oo halkaas ku lumay. Markii cali uu isku dayay inuu dib u baxo, albaabkii guriga ayaa iskiis u xirmay, waxaana ka dambeeyey dhawaaq u eg birdaxalaysan oo la xoqayo. Odaygii wuxuu bilaabay inuu isbeddelo, maqaarkiisu wuxuu noqday mid madow oo dildillaacsan, gacmihiisuna waxay noqdeen kuwo aad u dhaadheer. Gadaasha guriga waxaa ku yiil ceel duug ah oo silsilado waaweyn ku xiran yihiin. cali wuxuu maqlay dhawaaq ka imaanaya ceelka gudihiisa, kaas oo u ekaa oohin carruur iyo qaylo dad la jirdilayo. Oday beeray ayaa u soo dhowaaday cali, wuxuuna ku yidhi, ceelkani ma aha mid biyo ah, waa meesha ay ku nool yihiin kuwii naftooda iibsaday. cali wuxuu arkay silsiladihii ceelka oo si xoog ah u ruxmaya, waxaana ceelka ka soo baxay gacmo badan oo bini'aadam oo dhuubnaan darteed lafaha u muuqdaan. Gacmahaas waxay isku dayayeen inay qabtaan cali, iyadoo uumiga ka soo baxaya ceelka uu ahaa mid gubaya maqaarka bini'aadamka. Oday beeray wuxuu isu beddelay makhluuqaad aad u weyn oo aan lahayn weji, balse leh af weyn oo ay ka buuxaan ilko dhaadheer oo dhiig leh. Makhluuqaadkan oo loogu yeeri jiray ruuxaan cun, wuxuu bilaabay inuu ku ordo cali isagoo ku gurguuranaya derbiyada guriga. cali wuxuu ku guulaystay inuu jid u helo qolka hoose, halkaas oo uu ku arkay lafo bini'aadam oo meel kasta yaala. Waxaa ku dhex jiray buug duug ah oo lagu qoray dhiig, kaas oo sheegayay in odayga iyo ceelku ay yihiin hal shay, iyo in mid kasta oo halkaas yimaada uu noqonayo maqaar cusub oo uu ruuxaantu xidho si uu bini'aadam ugu ekaado. cali wuxuu helay baaruud iyo gaas uu horay ugu siday gaadhiga si uu dab ugu shito. Isagoo gariiraya, ayuu isku dayay inuu diyaariyo dab uu ku gubo makhluuqaadka. Laakiin ruuxaantii ayaa ka soo degay saqafka guriga, wuxuuna ku dhawaaqay magacyada ehelka cali mid mid, isagoo isticmaalaya codka hooyadiis oo dhimatay. Tani waxay cali ku riday naxdin xaddaaf ah, wuxuuna dareemay in maskaxdiisu ay bilaabayso inay dhumayso. Makhluuqaadkii wuxuu isku dayay inuu cali u jiido dhinaca ceelka si uu ugu dhex rido, halkaas oo ay ku sugayeen boqolaal kuwo kale oo naftooda lagu jirdilayo. cali wuxuu dhexda kaga jiray loolan dhimasho iyo nolol ah. Gacmihii ceelka ka soo baxayay ayaa qabtay lugtiisa, waxayna bilaabeen inay hoos u jiidaan. cali wuxuu arkay in ceelka gudihiisu uu yahay god aan dhammaad lahayn oo ay ka buuxaan madax bini'aadam oo weli nool balse aan hadli karin. Xanuunka uu dareemayay wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karin, maadaama ciddiyaha makhluuqaadka ay dhex galayeen hilibkiisa. Isagoo xooggiisii ugu dambeeyey isugu geeyey, cali wuxuu soo saaray mindi weyn oo uu mar kasta siday, wuxuuna iska gooyey qayb ka mid ah hilibkiisa si uu uga baxsado gacmihii haystay. Isagoo dhiig baxaya, cali wuxuu u orday dhinaca gaaska uu dhigay. Ruuxaantii ayaa ka soo daba orday isagoo soo saaraya dhawaaqyo naxdin leh oo dhulka ruxaya. cali wuxuu ku shubay gaaskii ceelka dushiisa iyo hareeraha guriga, kadibna wuxuu ku tuuray kibriid shidnaa. Isla markiiba dab weyn ayaa kacay, kaas oo dhex maray ceelkii iyo gurigii. Makhluuqaadkii ayaa bilaabay inuu u gubto si naxdin leh, qayladiisuna waxay u ekayd boqolaal qof oo hal mar wada dhimanaya.
dabka dhexdiisa cali wuxuu arkay wejiyadii dadkii horay loogu dilay halkaas oo u muuqday inay u mahadcelinayaan intayna dambas noqon. cali wuxuu ka cararay goobtii isagoo aan dib u eegin, isagoo dhex ordaya mugdiga guban. lugtiisa dhiigga leh ayaa dhulka raad ku reebaysay, balse ma uusan istaagin ilaa uu ka gaaray jidka weyn. dabkii ka kacay aqalka wuxuu u muuqday mid cirka gaaray, laakiin markii uu cali gaaray waddada, dabkii ayaa si lama filaan ah u bakhtiyey, waxaana dib u soo noqotay aamusnaantii madow. cali wuxuu arkay gaadhigiisii oo yaalla meeshii uu uga tagay, balse markii uu gudaha galay, wuxuu muraayadda hore ku arkay qoraal dhiig ku qoran oo leh, waan ku helay, hadda maqaarkaygu waa adiga. markii waagu beryey, cali waxaa helay dad safar ah isagoo suuxsan oo dhiig badani ka baxay. isbitaalka ayaa loola cararay, laakiin dhakhaatiirtu waxay la yaabeen markii ay arkeen in cali jidhkiisa ay ku yaallaan raadad faro oo gubtay oo aan laga tirtiri karin. cali wuu ka soo kabsaday dhaawacyadii, balse weligiis ma uusan hadlin mar kale. habeen kasta markay saacaddu gaarto wakhtigii uu gaadhigu ka xumaaday, cali wuxuu bilaabaa inuu qayliyo isagoo tilmaamaya ceel aan muuqan. waxa ugu naxdinta badnaa waxay ahayd in midabka indhihiisu ay noqdeen madow saafi ah, sida kuwii oday beeray, taas oo dadka xasuusisay in habaarkii guban uusan marnaba dhammaan.